Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada horumar madbaqaaga janal. Asxaabi waan idin salaamayaa meel kastood kala joogtaan iyo xilli kasta idin tahay waqtigu ha idin wacnaado. Insha Allah khayr badan ayaan idin rajaynayaa. Asxaabta hore u joogtay iyo asxaabta cusub intaba waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada iyo qalbi faraxsan. Janalku waa janalkiini insha Allah. Waxaan rajaynayaa in aynu janalkan insha Allah ku kala faa'iideysan doono waxyaabo fara badan oo madbaxa ku saabsan mustaqbalka dhow insha Allah. Imikana cuntooyinka aan soo geliyo insha Allah in aynu ka wada faa'iideysan doono ayaan rajaynayaa biidhnillaahi kariim. Asxaabi maanta waxaan sameynaynaa sandwich aad u fudud aad u nafaqo badan insha Allah biidhnillaahi kariim. Waxaan rajaynayaa ka wada faa'iideysan doono. Bismillaah. Halkan khudaartii ayaa inoo taala waan soo qori doonaa insha Allah. Laakiin halkan kale waxay noo saaran biyo. Biyahan waa haaf. Markaas biyahan waxaan kusoo dhex ridayaa shaandhadani waxa weeyaan shaandhada ee birta ah saas ayay isugu urursan tahay marka hore kadibna saas ayaan u kala saaray weydinka arkaya waxay leedahay lugaha yaryar ee ay ku taagan tahay yacni biyaha ay kor ugaga istaagayso waa shaandhada yar shabaga ah ee kala baxbaxaysa arkaysaan mar saas ay ku samaysaa marna saas ayay u kala baxaysaa. Marka waxaan doonayaa in aan dhex dhigo distidan maaha disti iyada leeg laakiin disti iyada leegna way ku shaqaynaysaa ku kayrna way ku shaqaynaysaa way isku duubnaa way kala furfurmaysaa marna asxaabi halkan khudaartii aan soo jarjaray baan ku soo guray waad arkayseen biyuha hoos ayay jireen marka khudaartii ayaan shaandhada ku dhex shubay kadibna khudaartii ayaan isku yar walwalaaqay daboolka ayaynu saaraynaa insha Allah si ay biyuhu u karaan oo dabadna uumiguna uu bisleeyo khudaarta halkan maqliga waxaan ku shubay saliid olive saliidana qiyaasta waa qof intii isagu rabo waxaan ku soo daray basal aan jarjaray yacni xabad roona basal ayay ahayd ama laba midho yaryar dabeetana intaas markii aan halkaas kugu geyno on daboolay saad aragtaan si ay usoo shawaxdo markii inoo soo shawaxday ama inoo soo shiilantay kolba sidii loo fahmayo waxaan ku soo darayaa barbarooni akhdar iyo casaan sidaad aragtaan huruudi qofka ahayna wuu ku darayaa laakiin markasta waan sheegaa hal barbarooni haddaad hayso way kugu filan tahay. Asxaabi intii way isla shawaxday saasay isugu ekaatay maasha Allah si fiican ayay inoo yahay intaasaas ay diyaar ku tahay khudaartii uumiga inoogu bislaanaysana waa tan si fiican ayay inoogu bislaatay waa taa maasha Allah sidaas ayay uumiga ugu soo bislaatay dabeetana waxaan soo qaaday khudaartii hore iyo iyadii yacni tii barbarooniyadii iyo khudaartii soo hurtay baan isku keenay intaas ayaan isdhex gelinayaa insha Allah uumiga khudaarta lagu sameynayo walaal bay nala soo wadaagtay inta bac lagu xiro in biyaha oo karkaraya bacda la dhex dhigo khudaarta ku jirto Sucaad Cabdiraxmaan insha Allah khayr Allah siiyo iyadana fikrad fiican bay nagu soo biirisay halkaas aad arkayseenba xawaashiyadii ayaa aan ku daray xawaashiyadina waan soo qori doonaa halkan aan kusoo dhigi doonaa insha Allah saas ayay isla ekaadeen maasha Allah tabaaraka raxmaan aad iyo aad ayay u qurux badan tahay waanad arkaysaana wax tayo badan nafaqaduna way joogtaayo biyihii yacni kamay raacina uumi bay ku bislaatay asxaabi beed ayaan soo qasay in yaroo milix ayaan kusoo qasay halkan maqligana dabka soo saaray dabeetana saliid yar ayaan marmarinayaa si aanu ugu dhagin beedka dabeetana beedkii ayaan kusoo shubay sidaad aragtaan markaan beedkii kusoo shubana uu inoo bislaanayaa insha Allah biidhnillaahi kariim milix yar iyo filfil yar baan beedka ku daraynaa wax kale kuma darayno sidaas ayaan beedkiina inoogu bislaanayaa dhinaca kalean u rogay dabeedna waan jarjarayaa hadda imika waqtigaa igu yari haddii imika waqtiga ihiintan iga roon yahay iyadoo isagoo ballaaran baan rugi lahayo markuu bislaadana sidii jiistii baan isagoo balbalaaran jarjari lahayo sandwichka saari lahaa laakiin imika waan yara degdegsanahay asxaabi waatan khubustan aan sameeyey ama af Soomaaligeena
waxa loo yaqaanaa soomaalidana qaar muufo bay yidhaahdaan baan filayaa laakiin dee carabta waa khubs waa khubs wataas gudaheeda maasha allah dusheedana waad aragtaan mar dhowed baan dubay quraac ayaan ka dhigayaa insha allah wasfadan aan maanta samaynayno waxaan waa lagu yani quraac bay tahay laakiin cashana waad ka dhigan kartaa insha allah waxaan rajeynayaa inaynu ka wada faa'iideysan doono saas ayaan u kala jarayaa dhexda si aan khudaartii iyo saladkii iyo wixii aynu haynaba aynu dhexda uga gelino saas marka hore khubasta ayaan saa u kala wada jarjarayaa dabeedna markaan diyaarsado halkan beedkii aan soo jarjaray baa ii yaala halkan waxaa ii yaala khas ama salad wakaas khubastii ama muufadii kolba sidii loo yaqaano saladkan gelinaya aniga miiska waa igu ciriiri markastana waan sheegaa dabeetana waan iska kulley inagu filan imika insha allah khayr waxaan ku gurayaa waxaan sameeyey saladkii baan dhigay kadibna khudaartii baan ku guray dabeetana beedkii baan haddana beedka waa shayga ugu sareeya saladkii baan dhigay saladkana liin dhanaan buu lahaa qofkan liin dhanaanta rabin wuu ka dhaafi karaa saladkii baan dhigay dabeetna khudaartii baan dhigay dabeetana beedkii baan dhigay waa halkan idinka lahaa beedka isagoo isku yaala sida jiista balaaran uma saa u duldhigi lahaa laakiin intaan jarjarayay intaan ayaan qaraacaasa ii degdeg batay markaa saas ayaan kusoo dhammaynay oo idinka arkaysa u eg tahay maasha allah tabaaraka raxmaan quraac aad iyo aad u nafaqo badan oo u fudud weeyaan khubustuna waa intaad shaha karkarinaysa intaasubay ku faxaysaa aad wax kala hagaajinayso waxaan rajeynayaa asxaabe inaad ka faa'iideysateen casharkan insha allah caruurta iyo reerahana aad uga faa'iideyn doontaan iyo qoysaska iyo martida iyo cid walba madbakhana aan ku camiran doono sidoo kale mahaaradaha ayaynaan ilaabin yacni intaasoo sandwich haddaad samayso maasha allah tabaaraka raxmaan oo sidaas ah oo aad muraayada soo dhigto macmacaalayaasha iyo meelaha muqaaxiyaha aad iyo aad bay u fiican tahay waxaan rajeynayaa dadka meheradaha leh iyo dadka macmacaalayaasha leh iyaguna inay ka faa'iideysan doonaan xaafadahana looga faa'iideyn doono sidaas ayay ku dhan tahay wasfadeennii maasha allah tabaaraka raxmaan waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan asxaabta commentiga soo qortay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra sidoo kale asxaabta cusub waan soo dhoweynayaa waxaan idin leeyahay insha allah channelka meel sare gaarsiiya waynanu meel sare gaarno insha allah saa waxaan ku dhaafayaa asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu